بسم الله كسر جنرالكي وزاهر محمد maanta waxaa qaban doonaa casharkeena toddobaad ee maadada macroeconomic maanta casharkeena toddobaad wuxuu ku saabsan yahay marginal product of labor macnaha wax soo kordhinta ee shaqaalaha marka marginal production of labor waxaa la dhahaa tusaale ahaan oo kale ama definitionka caadiga ah macnaha waxaa waaye wax soo saar oo zaa'id ah imaado kaasoo shirkadda soo saarto wax zaa'idkaas waxyaabaha oo soo saarka oo kor u kacayna waxaa sabab u noqonaya markaas in lagu soo kordhiyo xubin ka mid ah shaqaale cusub anagoo u fiirinayna wixii kale input ah oo shirkadda qaadayso inaan dhahno fixed waaye kaliya waxaa rabnaa inaan ogaano laborka wax khuseeya okay marka waxay noqonaya external output of the firm can produce using additional unit of labor marka wax soo saarka ziyaadada ah ee shirkadaha soo saaraan kaasoo iyagoo u isticmaalaya shaqaale oo cusub ama inay kusoo kordhiyaan shaqaale cusub holding other input fixed maanaha holding other input fixed marar badan economic waxaa ku arkaysaa other thing equal other thing is fixed other thing is constant oo kale macnaha macneed waxaa waaye kaliya waxaa fiirinaynaa labada unit okay outputka extra outputka iyo unit laborka oo hadda additional unit laborka bas ayaa isku fiirinaynaa macnaha waxyaalo kala jira oo outputka oo kor u qaadi kara laakiin waxyaalahaas aniga ma rabno inaan fiirino marka waxaa leenahay other holding other input fixed aa dhehaynaa kaliya aan fiirino additional unit of labor iyo extra outputka of firm soo saara sida u ogaan labadaas xubnood wixii ka dhexeeya xiriir ah okay intaas waa fahma filayaa imaano qaybta hoose ana qaacidada waa qaacidadii NPL-ka ee marginal product labor lagu helayo tusaalaha oo kale fraction kan KL plus 1 oo capital labor-ka lagu daray another labor subway midkan waxa waaye waa current waaye waa mid hadda shaqaale cusub lagu soo kordhiyay waxaa laga jaraa fraction KL oo ah kii oo previous waxaa waa qaacidada hore waa tusaalahaan ka shaqaalihii hore iyo shaqaalihii hore oo hadda lagu soo kordhiyay mid kamid ah wixii la kala jaro oo midkan current previous laga jaro waxaa ah NPL ka soo saarka ana waxaan rabnaa in ogaano one-kan wuxuu uu kusoo kordhiyay inaan ogaano saa ogaan waxaa waaye wixii hore shaqaalihii hore waxay soo saarayaan waxaa laga jaraa shaqaalihii hadda oo kusoo biiray shaqaalaha cusub waxay soo saarayaan si ay u ogaano inta oo mug oo egyahay oo la egyahay wax soo saarkiisa qofka shaqaalaha cusub okay example kan qaadano halkan waa labor waaye sababta labor kan waa labor kan waa output midkaan raadinaya NPL ka waaye tusaale ahaan oo kale waxaan rabnaa inaan ogaano kale shaqaalana ma joogo wax soo saarkina waa eber marka wax soo saarkan eber ahaado laakiin se waxaan rabnaa wixii hore shaqaalihii hore waxay soo saareen ama previous-ka marka previous ma hayno sidaa daraaddeed waxaana not available marka aan kasoo qaadno inaan shaqaale qaadanay wuxuu soo saaray 10 marka 10 haddaan ka jarno wixii hore soo saarin waxay hore waxba ma soo saarin sooma marka 10 laga jaro waxaa soo baxay eber 10 kiibas 10 shaqaalaha cusub 10 shay soo saaray okay shaqaale labaad qaadanayna shaqaale labaad marka qaadano wuxuu soo saaray labada shaqaale isku soo darkooda waxay soo saareen 19 marka 19 kan oo outputka oo current ah waxaa ka jirana previous outputkii oo hore oo shaqaalihii halkii shaqaale wuxuu soo saaray hore marka kala jirna waxaa soo baxay waa noqonaya 19 and 10 waa 9 waaye 9 shay ayuu soo saaray shaqaalihii labaad markii lagu soo kordhiyay shaqaalihii horena wuxuu soo saaray 10 kan dambena wuxuu soo saaray 9 okay shaqaale saddexaad la qaatay isku darkoodii waxay soo saareen 27 markii laga jaro 9 iyo 10 waa 8 okay midkan ayaa fiirinaynaa midkan markii shaqaalihii 4 ay noqdeen afartooda waxay soo saareen 34 haddii laga jaro 27 waxay noqonayaan 7
okay saas ayaa loo xisaabiyaa loogu shaqeeyaa NPL-ka haye shaqaale shanaada la qaatay shaqaale kale la qaatay shaqaalihii kale la qaatay waxay isku wadagtoodu waxay noqdeen shanta shaqaale waxay soo saareen 40 shay soo saareen 40 shay haddii laga jaro 34tii hore waxaa soo baxaya 6 marka saas ku soconay macnaa ilaa hoos laga gaaro marka kaliya waxaa sameynaya midka hadda lagu jiro shaqaalaha hadda intii cadadkoodu yihiin waxaa ka jira shaqaalihii hore cadadkooda wuxuu ahaa haddii hal shaqaale kusoo kordho halkan shaqaale waxaa rabnaa in wuxuu soo saaro wixii oo asiga contributionkiisa uu noqdo inaan ogaano marka waxaan ka fiirinaynaa NPL-ka graafka intaan graafkan xisaabin oo qaacidadan datadan ku fiirin productionka aan fiirino marka productionka waxaa arkaysaa waxaa haysanaa productionka ilaa iyo 55 aan haysanaa 55 ilaa ibra haysanaa sidoo kale shaqaale laborkan waxaa haysanaa ilaa 10 aan haysanaa 10 laborka waa kana way ku soo fiihiin inta 55 ilaa 60 waa ku qodobnay marka waxaa sameynaysaa kaliya shaqaalii koowaad wuxuu soo saaray 10 shay shaqaalii labaad wuxuu soo saaray 19 marka معناها سامع نقول سامع معناها لا بضع وكل هذا بس صعنا معناها جروب باي إلا يو سعودة مجيدة برشة مرة وحبا كل داي معناها ما كان برشة كأفيس وحضرنا إن وثلاث مرة بق كل سعودة تهاي بسيطة هاي مرة بق شغالي لسوق اليو وحبا هاوي رادي وحبا كل داي معناها كل بوس سعودي أوكي midka soo fahamtayna fila waxaan fiirinaynaa NPL-ka ka shaqeynaynaa okay marka NPL-ka ka shaqeyno salahan ka shaqaalihii koowaad kan waa wasiir waxba ma hayno shaqaalihii koowaad wuxuu soo saaray 10 NPL shaqaalihii 10 waa kan soo raac kan waa noqonaysaa kan soo saaray okay shaqaalihii labaad wuxuu soo saaray 9 kama fogaasan halkan okay shaqaalihii saddexaad wuxuu soo saaray 8 كمان سيفر جوا كده لو يهي كهركع مرة أوكي شغالي أفراد الحصول ساري كتبه شغالي سنة الحصول ساري له شغالي كدواد الحصول ما شغالي سنة شغالي لحد الحصول ساري له شغالي لحد الحصول ساري شن شغالي كدواد الحصول ساري أفر شغالي زداد الحصول ساري سيجا شغالي هي سيالات الحصول ساري اللابو وحالكان شغالي طبعا الحصول ساري حاول اوكي marka waa dareemaysaa oo si hamar waxa sameeynaa marka line-ka oo qabanayna okay marka waa dareemaysaa iyo muujinayna video contribution piece okay marka MPL ku waa kana shaqaalihii ka dambeeyay waxa dareemaysaa in mar walba oo decline jiray marka si loo fiiriyo graafkan waxa uu socdaa dhanka hoose waana minus waxyaalo badan keenaya in MPL ka mar walba minus noqdo oo shaqaalaha ka dambeeyay hore waxa uu sheegnay in aan u fiirinayn basically fixed other thing fixed la dhahayno laakiinse marwalba aad aragto in shaqaale kala soo kordhiyo laakiinse other things kale aan saameyn ku lahayn sida machine-ka kale iyo space-ka kale waxyaalo badan
marwalba waxaa sida la filinaya sida caadiga ah inuu minus imaado waa rajeynaa marka marwalba oo contributionka oo shaqaalada sii badiyo laakiin si oo anagu u fiidnayn other things kale in oo marwalba outputka uu sii yaraanayo taasi aa marwalba caddeynaysaa waa filaa in halkan aan kusoo gabeyno marka please haddii aad qabto wax su-aal ah just comment igu soo reeb ama by email igu soo dirtaa cashirkeena toddoba halkan aan ku sameeyaa marka haddii case kale u baahato faahfaahin dheeraadana qaybta commentiga soo hadal insha allah. Mac salaama.